dowladda hoose ee degmada Boorama ayaa maanta olole nadaafadeed ka fulisay xaafadda Sheeldheer ee magaalada Boorama. Ololahaasi oo ay ka kaashanayeen dowladda hoose iyo qaar ka mid ah bulshada qaybaheeda kala duwan ee ku nool xaafaddaasi ayaa ahaa mid kor loogu qaadayo bilicda iyo nadaafadda xaafadweynta Sheeldheer ee magaalada Boorama. injineer maxamed sheekh daahir qaalib oo ka mid ah dadka degan xaafaddaasi ayaa uga mahadnaqay howlgalkan nadaafadeed dowladda hoose ee degmada Boorama. ilaahay baa mahadle waxaan maanta halkan uga mahadnaqayaa maamulka dowladda hoose iyo qaybta nadaafadda oo agaasimo ka yahay Cabdiraxmaan Jacda oo si hagar la'aan ah maanta ugu hagar baxay xaafadda Sheeldheer qaybta beerta reer Sheekh Xuseen Abraar iyo reer Cabdi Muruud oo qashin badan iyo uu yaalay maxaan ku raahdaa ay bakhtiday oo ay maanta kaabeen ku qaadeen aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa dhammaan waxaan ku bogaadinayaa maamulka dowladda hoose ee degmada Boorama habsami u socodka hawlaha maamul ee ay hayaan aad baan ugu mahadnaqayaa dhammaan qaalaha qaabilsan qaybtaasi oo si hagar la'aan ah maanta uga shaqeeyay waxaan qabteen wax loo baahnaa oo aad iyo aad ay ugu mahadsan yihiin. sidoo kale injineer maxamed sheekh daahir qaalib oo hadalka qaatay ayaa fariin u diray bulshada ku nool xaafadda Sheeldheer. waxa kale oo halkan fariin uga dirayaa dadweynaha ku xeeran xaafaddan aanu jaarka nahay oo caadaystay inay qashinka keenaan halkan ay ku soo daadiyaan iyaga oo maalin kasta diyaar loola yahay oo ay soo maraan baabuurtii qashinka qaadaysay. waxaan xaafadaha ku dardaarayaa ay qashinka naga joojiyaan ay noo keenayaan maamulka dowladda hoose iyo ciidamada booliskana waxaan leeyahay cidda keenta waanu ka soo warbixinaynaa waanan keenaynaa hala naga qabto oo ganaax la saaro. xaafadaha qashinka keenaya waa xaafadaha ku hareeraysan labadan beerood intooda badan dadku way saaraan qashinka laakiin dad badan oo maxaan ku raahdaa ka dhaga adeegay oo aanu garanayno ayaa qashinka keena. dadkana waxaanu leenahay waa in tallaabo sharciya laga qaadaa oo maamulka dowladda hoose maanta intii ka dambaysa sida meeshaas sida loo nadiifiyay waa inaan lagu arag qashin dambe. aad iyo aad baan uga cudur daaranaynaa in guryaha iyaga hortoodii qashin lanoo keeno. dowladda iyo shirkadaha ka shaqeeya qashinkuba way shaqeeyaan si wanaagsan bayna u shaqeeyaan laakiin waxaa loogu taag leeyahay dadkii oo gara maraya keenayana qashinkii xaafadahu intay ka soo qaadaan xaafado kala keenaya. arrinkaas aad iyo aad baan dowladda hoose ugu dardaarayaa inay cid u samayso. annaguna waanu ka caawinaynaa fartaana ka saaraynaa cidda halkaa keenta. awalba annaga ka ahayn shaqaale annaga ka ahayn oo ka ilaalinaynay laakiin hadda waa naga xoog bateen waana soo buuxiyeen meeshii. maanta se intii ka dambeeyay mar haddii sidan loo nadiifiyey waxaanu ballan qaadaynaa inaanu keeni doono cid kasta oo aanu ku aragno meesha sharciga inaan la tiigsan doono dowladda hoose u geyn doono haddii ilaahay yidhaahdo. waa Cabsalaan Bashiir Faarax Cabsalaan Saaha, warbaahinta qaranka Somaliland, magaalada Boorama.